بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعنا وناكسن داوديالي دلكين بمeel kasto aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka qodobada daawadayaal barnaamijka qaybtan koobaad aynu ku eegi doonno haddii Allaha awood leh uu raali ka noqdo waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalada dhex maraya ciidamada Sudan iyo Itoobiya dagaalka oo meel adag maraya iyo oo maanta oo Jimco ah oo la soo sheegayo in ciidamada Sudan ay ku gacan sareyaan dagaalka dowladda Itoobiya oo sii deysay hogaamiye sare oo ka tirsanaa jabhadda TPLF iyo TPLF oo ciidamadii ugu badnaa soo gelisay qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka Tigreega waqtiga kama dambaysta dadka Maraykanka ay ka xoroobi doonaan coronavirus oo la shaaciyay mar kale daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka qaybta koobaad waa hagaag aynu ku bilownay marka hore dagaalada u dhaxeeya Sudan iyo Itoobiya oo ilgaara aynu ku haynay iyada oo jumcanimadan maantana la soo sheegayo in ciidamada Sudan ay qaadeen weerar rogaal celin oo ay dib ugu riixayaan ciidamada Itoobiya kaas oo jawaab u ah weerarkii shalay ay soo qaadeen ciidanka dowladda federaalka Itoobiya waxaana la sheegayaa in dagaalka uu yahay mid culus kadib markii kumanaan ka tirsan ciidamada Sudan ay u jihaysteen dhanka Itoobiya iyada oo la sheegayo Itoobiya ciidankeedu inay isku dayayaan iyaguna inay isdifaacaan mar haddii weerar ka culuskoodii lagu soo qaaday dagaalkan hadda socda lama oga qasaaraha ka dhashay maadaama daryanka madaafiicda labada dhinac ay isku adeegsanayaan sidoo kalena waxaa la sheegayaa in ciidamada Sudan ay diyaarado dagaal kiciyeen inkastoo dagaalka ayna ka qayb qaadaneen haddana aagaga u dhow xadka ayay dul hayhaabayaan diyaaradahaasi kuwaas oo doonaya in haddii ay dhacdo inay ciidanka Itoobiya dagaalka ku soo itaalroonaadaan in ay duqeyn la beegsato ciidamada Sudan ee gaaray aagaga hore ayaa ah kuwa dhawaan laga keenay qaar ka mid ah gobolada wadanka Sudan oo lagu diyaarinayay kuwaas oo la sheegay in loo bixiyo difaaca xadka waxaana loogu talagalay in ay ciidamada Itoobiya 10 adag u dhigaan si mar kale aanay Itoobiya u soo dandaansan ciidanka Sudan inkastoo dagaaladan ay soconayaan haddana waxaa jira ishub urursi iyo sidoo kale ciidan diyaarsasho adag oo labada dhinac ay wili kala wadaan waxaana jira dowlado kala taageeraya ciidamo Eritrean ayaa la sheegayaa qodoodu inay ku soo biirayaan aagaga dagaalka iyaga oo garab siinaya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyadoo la ogyahay in horay madaxweynaha wadanka Eritrea Siyaasa Fawaaki u sheegay dowladda Sudan in ciidankiisu aanay qayb ka ahayn dagaalka ay kula jiraan Itoobiya hase ahaatee markan waxaa cad in ciidamada Eritrea ay si indhala-aan dagaalka u soo galayaan halka dhanka Sudan taageero ay ka helayaan Masar laakiin Masar hadda waxa ay ka taageeraysaa ciidamada Sudan hubka iyo istiraatiijiyada dagaal laakiin ilaa 5,000 oo askari oo ciidamo masaari ah ayaa ku sugan gudaha wadanka Sudan kuwaas oo haddii laga maarmi waayana dagaalka la gelin doono midowga Afrika iyo sidoo kale dalalka daneeya arrimaha Sudan iyo Itoobiya iyo ururada IGAD midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa aad u daneynaya in la joojiyo dagaaladan isla markaana lagu bedelo wada hadal si miiska loo wada fariisto laakiin dowladahan ayaa iyagu ka madax adeegaya waa Sudan iyo Itoobiya haddaba daawadayaal waxa ku soo kordha wararka iyo barnaamijyada dambe marqaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allaha awood leh uu raali ka noqdo insha Allah bal markana aynu eegno gobolka Tigreega waxa inoo soo socda haweeney ka tirsaneyd mas'uuliyiinta sarsare TPLF oo la fasaxay kadib markii si damaanada lagu sii daayay dowladda Itoobiya ayaana fasaxday dhinaca kalena TPLF ayaa markan wada abaabulo aad u xoogan oo ay ku doonayaan inay ku soo galaan ama ay ku qabsadaan aagag ka tirsan gobolka Tigreega oo horay dagaal loogaga saaray isla markaana ay wali ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya iyo kuwa Eritrea silama filana ayaa shalay ilaa iyo darad lagu arkayay ciidamo aad u fara badan oo boqolaal gaaraya kana tirsan TPLF kuwaas oo gudaha u soo galaya magaalooyin ka tirsan gobolka Tigreega waxaana halkaasi ku soo dhaweynaya dadweyne fara badan oo u saacabatumaya ciidamadaasi oo aad u taageersan una marxabeynaya meelaha ciidamada ay soo galeen waxaa ka mid ah magaalo ku dhow Cusub iyo sidoo kale deegaan la sheegay 3 kilomitir oo kaliya in uu jiro magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega ciidamadan ayaa ah kuwa aad u hubeysan waxaana ay ku socdaan lugta sida muuqaalkaba aad ka aragtaan iyaga oo sidoo kalena saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan ay dadweynaha goobo fagaara ah kula hadlayaan una sheegayaan inay adkaystaan oo iyagu wili ay diyaar u yihiin inay dhulka difaacaan oo ay ka saaraan ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea ee duulaanka ku soo qaaday ee gobolkaasi
inkastoo dagaalkii wejiga ahaa looga itaal roonaaday TPLF haddana waxa ay qorsheysay in ay dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ay la galaan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa TPLF waana sababta keentay in ilaa iyo hadda dagaalka gobolka Tigreega aanu u dhamaan maalin walbana dhibaato loo gaarsiiyo dadka shacabka ah. Maraykanka ayaa qorsheynaya soo jeedinta in ciidamo nabad ilaalin la geeyo gobolka Tigreega si loo xasiliyo halkaas isla markaana loo ilaaliyo badqabka dadka rayidka ah walow dowladda federaalka Itoobiya arintaasi ay faragelin u aragto sida uu sheegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed laakiin xaalka gobolka Tigreega ayaa ah mid aan sahlaneyn. dhinaca kale haddii aynu eegno Kerry Ibrahim hogaamiye sare oo ka tirsanayd xisbiga TPLF ayaa la sii daayay booliiska federaalka Itoobiya waxay u sheegeen maxkamad federaal ah in mar hore la sii daayay Kerry Ibrahim oo xubin ka ahayd guddiga fulinta ee jabhadda TPLF ee qowmiyadda Tigreega ku nool waqooyiga waddankaasi. waxa ay haweeneydan gacanta booliiska ku jirtay tan iyo bilowgii bishii December 1 sanadkii hore kadib markii ay ciidanka federaalka guluf colaadeed ku qaadeen kooxda TPLF ee maamuli jiray gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka. hadalka booliiska federaalka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in haweeneydaasi lala sii daayay laba hogaamiye kale oo aan ka tirsanayn xisbiga TPLF balse taageero u hayay dagaalamayaasha Tigreega. Kerry waxay horey u ahaan jirtay afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka waddanka Itoobiya ee loo yaqaan aqalka Federationka the House of Federation muddadii u dhaxaysay 6 May sanadkii 2018 ilaa 9 June sanadkii 2020 oo ay is-caasishay kuna biirtay TPLF. sababihii ay xilkaasi isaga caasishay ayaa lagu tilmaamay kadib markii ay ka hortimid qorshihii ay dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dib ugu dhigeen doorashadii guud ee dalkaasi ka dhici lahayd bishii August ee sanadkii hore sababo la xiriira COVID-19. dib u dhigistaasi ayaana sababtay xiisad siyaasadeed iyo duulaankii ay ciidanka federaalka ku qaadeen hogaamiyeyaasha iyo taageerayaasha xisbiga TPLF bishii November ee sanadkii hore kaas oo ilaa iyo haatan lagu kala bixin. ma kala cadda sababta ay dowladda federaalka Itoobiya xilligan u sii daayeen Kerry Ibrahim balse tallaabadaas ayaa loo arkaa qorshe bilow ah oo ay ku doonayaan inay dib u heshiisiin la galaan hogaamiyaasha xisbiga TPLF ee qaybta ka ah dagaalka weli ka socda gobolka Tigreega. si kastaba ha ahaatee Kerry Ibrahim oo ku dhalatay caasimadda Eritrea ee Asmara bishii March 22 sanadkii 1973 waa aqoonyahanad haysata shahaadada BA ee dhaqaalaha iyo cilmiga deegaanka. ugu dambeynna madaxweynaha waddanka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in dowladdiisu ay dardar gelin doonto dagaalka ka dhanka ah viruska corona. Mr. Biden ayaa ku dhawaaqay in Maraykanka uu heli doono talaal ku filan kaas oo ay qaadan doonaan dhammaan dadka waaweyn ee Maraykanka dabayaaqada bisha May. khudbad uu telefishinka ka jeediyay ayuu Mr. Biden waxa uu intaa ku daray in uu gobol walba ku amri doono in ay diyaariyaan talaalka si qof walba oo Maraykan ah uu talaalka u qaato. intii uu socday ololaha talaalka ayaa waxaa mudnaanta la siinayay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelada. Mr. Biden ayaa farta ku fiiqay in maalmo wacan ay soo socdaan kadib muddo sanad ah oo uu fayraska corona dhibaato ku hayay Maraykanka isla markaana ay u dhinteen nus milyuun Maraykan ah. haddii aan hawsha wada qabanno marka la gaaro 4 July waxaa jiri doona fursad ah in qoysaska iyo asxaabta ay isu imaan karaan oo ay u dabaaldegi karaan maalinta xorriyadda ayuu yiri Biden. waxa uu intaasi ku daray in dadka dalka aysan u dabaaldegi doonin oo kaliya maalinta xorriyadda balse ay u dabaaldegi doonaan ka xoroobidda fayraska. dalka Maraykanka ayaa noqday dalka kaalinta koowaad kaga jira tirada dadka ugu badan ee fayraska u dhinta caalamka. waxa uu cudurkani galaaftay nolosha 529,000 oo Maraykan ah isla markaana waxa uu ku dhacay dad ka badan 29 milyan oo qof. tirada uu cudurkan ku dilay dalka Maraykanka ayaa ka badan marka la isugu daro dadkii Maraykanka uga dhintay dagaalkii labaad ee adduunka, dagaalkii Vietnam iyo weliba weerarkii 11 September. guud ahaan daawadayaal inta aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.